4 sano ka hor wasiirkii amniga Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa iska casilay xilkiisa kadib markii ay kordheen falalka amni darrida ah gaar ahaan qaraxyada xilligaasi oo weerar lagu qaaday xarunta madaxtooyada iyo aqalka baarlamaanka Soomaaliya. Tallaabadaasi waxay dad badan u arkeen mid geesinimo leh maadaama ay xaaladdu ka sii daraysay. anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka anigoo rajeynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cid alle cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono. 2 sano kadib dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay wajahaysaa cadaadis dhinaca amniga waxaana dhacay qaraxyo waaweyn oo ka duwan kuwii dhacay xilligii dawladdii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud. xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxaa toddobaadyo kadib u buuxsamaya muddo 2 sano ah mana muuqato isbeddel dhinaca amniga iyadoo 3 jeer la bedelay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee dawladda haddana qaraxyada iyo falalka kale waa ay sii socdaan. taariikhda weerarkii ugu qasaaraha badnaa iyo kii ugu waqti dheeraa ayaa dalka ka dhacay muddada ay jirta xukuumaddan dadka qaarna waxa ay qabaan in la gaaray xilligii isbeddel dhab ah la samayn lahaa. mas-uuliyiinta waddankan maanta waxaan u soo jeedinaa inay ku sameeyaan amniga hadda jiro inay reform ku sameeyaan oo la reform gareeyo amniga ma ahan askari qor loo soo dhiibo jid la soo istaajiyo meeshan bolonsiya loo baahan yahay in wax la reform gareeya loo baahan yahay in marka ugu horeysa iyadoo reformka marka la samaynayo in horta loo fadhiisto qobar la qoro oo la sameeyo qoraal laga sameeyo oo la sameeyo la reform lagu sameeyo la habeeyo oo wixii la habeeyo ma ahan jawaan wax ma celiyo. shakhsiyaadka loo xusho xilalka muhiimka ah ee dalka mararka qaar looma eego aqoonta ay u leeyihiin mas'uuliyadda loo dhiibayo balse waxaa lagu doortaa saaxiibtinimada siyaasadeed iyo danaha gaarka ah taasi oo ugu dambeyn caqabad ku noqota dalka marka waxa ugu wacan waa dal madaxii laga dilay madaxa qofka hadii ummadda madaxii baa laga dilay sababta looga dilayna waxa weeye waxa halkan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada amni darrada keentay oo u sababa hay-adihii dawladda ama golihii wasiirada fulinta ha ahaadeen oo la rabay dad waaye araga oo aqoon siyaasadeed leh oo intelligence siyaasadeed leh oo qaabka maaragtay howlgalka loo sameeyo qaabka amniga loo sugo taasa meesha ka maqan waxa laga doorbiday oo ereyga aan leeyahay madaxa laga dilay aan leeyahay waxa laga doorbiday in la yiraahdo wiil yar saaxiibtinimo loo geeyo meel booliis loo geeyo nabad sugid loo geeyo amni loo geeyo wasiir laga dhigo aqoonteed iyo xifradeed lahayn meeshii qofka inta la tababaro dadkii khibradda lahaa oo aqoonta lahaa oo way aragga ah laga faa'iideysan lahaa oo ay soo saari lahaayeen arday ama jiil siyaasadda u bisil oo aqoonteed ay soo saari lahaayeen. mas-uuliyiinta dawladda waxa ay xarumahooda hordhigeen ciidamo iyo kontaroolo adag si ay uga hortagaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab balse taabadalkeeda shacabka lagu kordhiyay canshuurta ayaa la kulmaya dhibaatooyin amni darro iyadoo kumanaan askari oo dheeraad ah loo tababaray sugidda amniga caasimadda haddana xaaladdu waa mid sii xumaanaysa. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.